48 saac gudaha doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya hoos u dhacay qiimihii lacagta doolarka ahayd tusaale Muqdisho waxa halka doolar lagu kala sarrifan jiray 23 ilaa 24 haatan halkii doolar waxa lagu kala sarrifanayaa 19 ilaa 20 taasi oo qiimo ilaa 5,000 oo shilin Soomaaliya oo hoos u dhacay haddaba maxaa keenay hoos u dhaca lacagta doolarka qaar ka mid ah sarriflayaasha ayaa wax ka weydiiyay sababta keentay in lacagta doolarka ay hoos u dhacdo haddii aan maaragtaa ku bilaabo xaqiiqada jirtaa waxay tahay suuqa sarifku wax yar uu isbedelay maanta iyo shalay maalintii oo khamiistii suuqu wuxuu ahaa 350 ayaan ku xirnay shalay oo jimco ahayd oo suuqa laga maqnaa oo suuqu xirnaa ayaa maaragtaa wax yar oo ii sheego barabagaan oo dad ay sameeyeen ayaa la yidhi maaragtaa doolar badanaa suuqa soo galay taasoo noqotay been oo wax doolar oo suuqa soo galay aysan jirin ayaa sababtay in shalay maaragtaa dadkii la yidhaahdo waxa waaye sarifkii dhacay maciishadiina meeshay taagan tahay doolarkiina waa dhacay marka dhibka qofkaas gurigiisa ku taabaha taas ilaahay waxaan ka baryaa inaan meeshii ku soo laabo meel dhexdhexaad la isugu imaado si dadkana maciishadooda ku fiicnaato doolarkina meel dhexda keeno laakiin doolarka midaysa boqol yahay kartiin baas $40 yahay taas waxay moodaa in qoyskii taabanay dhawaato taabanaysa dhanka kale dadka shacabka ee ku nool caasimadda Muqdisho ee uu saameeyay hoos u dhaca doolarkan oo iskugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxaan wax ka weydiiyay saameynta oo ku yeeshay labadii maalin ee la soo dhaafay hoos u dhaca doolarka sida haddii ku sii socoto wax natiijo male xoogii eber oo noqonaa lacagtii eber way wax qabadna ma laha gaarigacankaana wataaniyo wallaahi billaahi tallaahi doolarka saameyn weyn ayuu maxay ahayd oo noo yeeshay sababtoo ah maciishadii wixii laga raadinayay saaqadii ahayd maxay ahayd dharkan 3,000 laga raadinayo haddana halkii doolar 20,000 laga dhigay 16 la sheegay oo lixda marka waxaan dhihi lahaa niyo doolarkeena caadiga aan oo socdo dadka inta ugu badan EFC u badan yihiin dad inta ugu badan cash wax yar dhif ah ayaa maxay cash u badan sarifka soo hadda ku socdo haduu ku sii socdo xogaa aad mushkilada aad bay carruur u noqonaysaa raashinka oo kacsan sarifka oo dhacaya hoos u dhacayo marka waxaan rabnaa in la isku basgareeyo raashinka iyo sarifka inay isku meel socdaan hadaysan saan ku sii socotana xaaladda waa xaalad adag gelaysa Axmed Cumar Honkebo TV Muqdisho.